bixinin haddana inaad si fudud janno ku geli karto adoon shaqo ka harin adoon hawl ka daahin adoon enerji badan bixinin adoon dhaqaalo bixinin adoon culays dhib kale ku soo gaarin hal waxuun haddaad ka adkaato inaad janno gashaay hubaal bay noqon kartaa qofka ilaahay waafajiyo nabigu saxaabadu la hadlay sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhu kaasuu yidhi ba idiin sheegaa waxaad samaynaysaan oo dhan kan ugu khayr badan darajooyinka aakharana ugu sarreeya rabbina ugu jecel yahay oo aadan shilin bixinaynin nafna aadan horaynin ma idiin sheegaa qofkii diyaar u ahaa jannada naf iyo maal inuu horo haddiiba la yidhi waxaan nafna la horaynin maalna la bixinaynin jannadana ugu darajo weyn ma kuu sheegaa si degdega iyo haleelo ah bay horay si degdega ugu dhaheen haa rasuulka ilaahay noo sheeg markaasuu wuxuu yidhi dikrullaahi wey ilaahay xuskiisa inaad barisaan ilaahay inaad in badan xustaan afkiinna iyo carabkiinna bartaan tasbiixdiisa iyo taxmiiddiisa ku celcelisaan saa darteed baa salaaddii faradka ahayd ee tawxiidka kadib uu khayr badnayd acmaasheenna markaynu dhammayno maxaynu ka dambaysiinaa dikri ilaah astaqfirullah tasbiix la akhriyo taxmiid la akhriyo dikri baan ka dambaysiinaa saa darteedna wuxuu yidhi dikrullaahi nin baa nabigu yidhi calayhi salaam rasuulka ilaahay oo shariicadii camal aan sameeya waan garan lahay kii aan soo u imaadaba isagaa ugu khayr badan baan isdhahaa salaadaan ahi dhagaystaa waxaan dhahaa wii salaadun ku dadaal kadib baan soom baan dhagaystaa kanaa ka fiican iga guur kadib baan sadaqa dhagaystaa alla tanaa ka fiican baan idhaahdaa kadib baan xaj iyo cumro la dhagaysan kuwii horeba tanaa ka daran baan dhihi cilmiga barashadiisa iman may tanaa ka daran waan ku wareeray mid allaalay ee midaan ku dhago oon qabsado jannadana ku gala ii sheeg wuxuu yidhi laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illaah carabkaaga dikriga ilahi uusan ka qallalin jidkaad socotaa subxaana allah iska dhig naftan waxaynu tijaabinnay bal idinku dib ila akhriya maskaxdani inay huruddo maahane ma nasato naftaadana waxunbaa ku wareegi ama guriga keliya kursi fadhi ama gidaar ku tiirsanow ama dariiqaa soco marka waxaad samaysa afkanna maba aamusi karaba carabkan lamaba xajin karaba waayihii hore waxaa dhis jiray ninka darawalkii hiyo markuu gaadhiga wadee hadda telefoon baa yaalla bal wax yar soco wax yar markaad joogta haddaad waxaad la hadasho weeyo kanaad soo qaadi wuu diri isagoo darawaloo waddo saaran buu diri wax macno oo markaa hadalka dhagaysata kaga xidhanna ma jire wuu aamusi laya ma aamusi karo haddaad maanta o dhan socoto mid baa heesaya mid baa wax kala qaadaya mid baa waxuun akhrinaya waxunbaad ka fikiri waxunbaad ku mashquulsan tahay markaa halkan ka baxdo eed guriga tagto bal intaad xisaabtanto waxaad ku soo mashquulsaneed maxaad natiijo ka haysaa waxba kulliguu qiiq iyo hawuu ahaa waxaa layna barayaa marka dikriga ilaahay geli beddelkeeda boodhaboodhaad saaran tahay maxaa kuu diraya subxaana allah inaad tiraado alxamdu lilah wallahu akbar subxana allah alxamdu lilah wallahu akbar wax ku diraya jira subxana allahi bixamdi subxana allahi alcadiim ma kharash baa kaa bixi ma enerji baa kaa bixi ma jidkii baad ka daahay haddaad gaadhi waddoo darawal tahay iyo haddii aad dhexda ka saaran tahayba dikriga ilaahay baa nabigu fuleedkiisa markuu sheegaya waa ka yidhi kalimataani khafiifataani cala allisaani laba eray carabka u fudud miisaanka aakharana culus allana jecel yahay subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim intaa inaad tidhahda subxana allahi bixamdi subxana allahi alcadiim halkaa markaad safka hore ka dhaqaaqdo ilaa aad kabaha xidhato imise jeer baad dhihi kartaa ilaa aad gurigaaga tagto imisaad dhihi kartaa nabigu waa kii mar kala baray laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir riwaayadka qad yuxyi wa yumiitu calaa kulli shayin qadiir 100 jeer haddaad akhrido intaada camalkaad samaysay qof kaa tira badiyey maahane camal ka khayr badan maalintaa qof samayn karaba ma jiro laakiin maalintoo dhan baa ku dhaafi hal mar adoon subxaana allahi wabixamdi subxana allahi alcadiim bihi waad mashquulsantahay indhahaagii waa mashquul maskaxdaadii waa mashquul afkaagii waa mashquul haddayna dembi ahayn maana yacni waad ku mashquulsantahay saa darteedba waxaa layna barayaa laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illah qur-aanka dhanba salaada marka laga sheekeeyey waxaa la yidhi tanhaa cani ilfaxshaa'i waalmunkar wala dikrullaahi akbar dikri ilaahay baa ka sii weyn waayo salaaddu 5 jeer bay soo noqotaa qof 5taa jeer ilaahay xasuustay
يقف ما أنت أن ربك يحسسه ذكر يسيها ياي يمسل نان كران ملايكته والدارين وكدارين كرتا ملايك بالروح الساري هذا عرب كما ذكرك قادم يانا قليك يانا جوجيني ذكرك إلهي احتاران حلقة قفلته dadku waxa kala ku mashquulaan maskaxdu ay maqan tahay xilliga fitanka waxay ka ajir badan yahay waqtiyada kale nabigu bisha rajab bisha shacbaan buu aad u soomi jiray waxa leeyahay maxaad u soontaa wuxuu yiri dadka halmaamay inta badan rajab bay dadaalaan ramadaankana way dadaalaan shacbaan dhaxday ka baxdaa bishaasaan nooleynaya مرنا وكين نبي حديث المهاجر بن قوفل العبادة في الهجر كهجرة إلي مركي دقالك يا فتنك يا بوق وصعود لك لقحي قفك عبادة إلهي يا صلاة ذكرك حسوستاي نبي محمد والنور عليه الصلاة والسلام قف هجرة وقلت غيب لنية كهجرة إلي أجر كاسر هذا مركي فتن بسعودان يدفك على عرر أيام مشكول سيء ده وحن باصا يكون مشكول صنع هاي وكلا يتوي مركي السنة انتهي مناسبات كانوا كلا اللي تشوفوا ذكر إلهي ونبعنا ذكر الله حن كسر بالجميل أيام وعرب كذا عاد بدي صوت برتاي حلقة مرينا هذا نشوفه مضحى ومقية مسك هذا مركب مقنطاي ويها سا عرب كابول ذكر